maalintii galmudug ayay maanta tahay mulaqooday waan miirkacee madaxa ifuran madaxa mulaqooday waan miirkacee madaxa ifuran maalintii galmudug ayay maanta tahay mulaqooday waan miirkacee madaxa ifuran madaxa mulaqooday waan miirkacee madaxa ifuran isma ogi markani isma ogi meelaan marayaba ama ogi fahankiya qalbigu markan waa galmudug u baahnayd in loo helo diasporaha waddankan Yurub oo dhan degan inay helaan hoggaan daacada waxaan aaminsanahay marka inaan Xuseen aan u ballan qaadayno haddaan nahay waxgaradka ama dadka Soomaalida ee ku dhaqan inaan u ballan qaadayno garab istaagno marka Xuseen qadig meel sokan ka aqaana runtii waa in Soomaalidu ku weytahay waa in meeshu joogo aan u kala tegin مسلسلوا دولية هنا يا بدنا أحسن كقبضة أنت تأثير شقيني وحن نقول جينا يا أوركان معنا منو هاي سب إلى بنيشيس كسي ودي معنا دياس لو بنيه ولا سكوك لو بنيه إيه واحد قبضة لو بنيه $100 أو سكوك درتي المجال أي سكول كل سكتا دوكسي كل سكتا عفمات قرن كتا إيه سكول ودير كتا ود دياس ولا آدي المنتج لكن لا يا نقصه galmudug waxaa jira ururo ayaa jira oo ka dhisan waddanka Netherland kolay markaa sarina si hadii wadaagi doonaa activitaadka ay galmudug ka sameeyaan ayagana inaad wax kala socoto oo meeshan hadduu mid isbitaal ka dhisay inaad kaleetan isbitaal ugu sugeedin waxyaabaha ka wada hadli doono waaye waana aaminsanahay inaad ka bixi doonto howshaas waayaanimadada aad leedahay taageero ahaan iyo wax walba ahaan annaka himil ahaan oo gudab taageernahay barnaamijkan quruxda badan aan caawa ugu hambalyeynayno gudoomiyaha cusub associationkaasi oo galmudug network ah u haya Yurub Xuseen Qadiib وأنا فرحت أعاون بدوميه أو كسر شقيني إنه هرولي ولا نشوفه وهي هي من أنا قارو عقبت كيسة مسؤولية هرسوا قطعي وأنتي أن كوكرسون هاي دومينا إفسروا مقدي كبحية وأنا سرعي لو قلبي مقدي كبحية في مقدي maalintii galmudug ayay maanta tahay mulaqooday waan miirkacee daladan macnaheedu waxa waaye in marka hore galmudug dhisto isku raadis reer galmudug ugu hadasho muhiimadda ay leedahay in aan wax wada qabsano muhiimadda ay leedahay oo kala ah in aan Soomaali weyn oo dhan aan la wada shaqeyno waxaan rabaa horta qaas inaan ugu mahadceliyo gudoomiyahayga hore walaalkay Faarax oo marxalad badan ka soo maray arrimaha tani markii wax qurux badan lagu dhiibo waxa waaye mas'uuliyadda leedahay mas'uuliyaddan waxa waaye aan wada xisaabtano macnaheedu waxa waaye aan wada xisaabtano waxba aan wada leenahay waaye markii wax la wada leeyahayna fikirka iyo aragtida way furan tahay in la iswareysto way furan tahay in la wada kaftamo way furan tahay in wax walba laga wada hadlo laakiin ujeedada mar walba ugu dambaysa waxay tahay waxa annaga danteena ah muhiim ah annagoo dhan ilaa saaxiib wada noqono laakiin waa inay naga go'an tahay danta galmudug iyo tan Soomaalinimo waxaa kaloo muhiim ah qof walba Soomaali ah meel walba uu joogo in uu mid ku fikiro oo ah shakhsi Soomaali inaad tahay mas'uuliyadna ku saaran tahay oo ah dadkaaga Soomaalidaada inaad wax u qabato walaalayaal waa mahadsantihiin caawa waqtigiina noo soo horteen waxaa aad iyo aad aan ugu faraxsanahay in caawa labayntii reer Holland ay wada dhan tahay
maalintii galmudug ayay maanta tahay mulaqooday waan miirkacee madaxa ifuran madaxa mulaqooday waan miirkacee madaxa